kulantii habboon idil ahaantiinba daawadayaal meel weliba waad ka joogtaan daafaha caalamka halkan waraadsan t v ku soo dhawaada war wixii aanu idinkaga hayno dhulka ay Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale qodobada ugu waaweyn ee aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood oo shiruga soconaya magaalada Nairobi oo ku dhawaaqay arrin khatar ku ah guud ahaanba xukuumadda talada joogta waxaanu idiin soo gudbin doonaa tallaabooyin xoogan oo ay kaga dhawaaqeen halkaasi iyo qodobo markaasi ay soo saareen waxyaabaha kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya oo markan awoodda tooxsanaysa isla markaana maamulada Jubbaland iyo Puntland awood ku maqoonaysa ka gadaal markii guud ahaanba wada hadaladii dhawaan la filayay inay dhexmaraan dhinacyadu ay guud ahaanba fashilmeen safarka madaxweynaha ee magaalada Kismaayo ayaana guud ahaanba fashilmay dowladuna waxa ay doonaysaa in ciidamo ay u isticmaasho mar kale Jubbaland iyo Puntland soo dhawaada wada hadayta markaaga kugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saar online gaar muuqaalkan wad ku maasantahay soo booqashadaada aanu ku hormarno wararka laga helayo magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa waxa ay ku nuuxsanayaan in guud ahaanba looga dhawaaqay halkaasi madal mucaarad oo aanan ahayn tan samata bixinta oo ay ku midaysan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood sida Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale waxa ku midaysan qaar ka mid ah madasha samata bixinta qodobada laga soo saaray waxaa ka mid ah in la dhiso golo mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin madasha samata bixinta iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland in si dhaqso ah shir la isugu yimaado gudaha Soomaaliya si looga arinsado go'aanada laga gaarayo xaaladda kala guurka ee siyaasadda dalka in shirka soo socda lagu dhameystiro golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale in shirka waxa uu uga baaqaya guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta iyo ka shaqaynta midnimada iyo xasiloonida dalka shirku waxa kale uu mahadcelinayaa dowladaha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia waxa kale oo loo mahadcelinayaa cid waliba oo garab ka geysatay guud ahaanba qorshaha maamul dhisida dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay madasha samata bixinta iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ee halkaasi ku sugan ee Puntland iyo sidoo kale Jubbaland waxa la tilmaamayaa tallaabadan inay culus tahay isla markaana madashu ay tahay mid ballaaran dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay waxa ay warbaahinta u isticmaalayso qoraallo iyo muuqaallo cadeynaya in safar madaxweynaha uu ku tagayo magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaa durbaba soo baxaya guud ahaanba in wada hadaladaasi ay dhicisoobeen ka gadaal markii madasha samata bixinta ay la shireen xubnaha mucaaradka ee maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubbaland ee fadhigoodu markaa ahaa maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Nairobi waxaase dhinacyadu ay isdhaafsadeen guud ahaanba sida laga yeelayo xaaladan kala guurka ee markaasi dalka uu wajahayo waxaa la tilmaamayaa in hadda guud ahaanba xal waara ay gaareen dhinacyadu isla markaana madasha samata bixinta markaasi ay ku midoobi doonaan xubnaha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale mucaaradka intiisa kale waxay noqonaysaa dowladdu in mar kale ay wajahayso cadaadiskii ugu xooganaa iyo tallaabooyin kale oo markaasi ay mucaaradku qaadayaan waxaa la tilmaamayaa in markan laga adkaaday madaxweynaha talada jooga Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xukuumaddiisu ka gadaal markii mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada falaagada ka dowladda dhexe iyaguna ay ku biireen dhinaca iyo garabka mucaaradka isla markaana madal kale oo mucaarad ah looga dhawaaqayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya malmay ugu dambeeyay ayaa siyaabooyin kala duwan ay dhinacyadu arrintan uga wada shaqeynayeen waxaa la tilmaamayaa hadda in guud ahaanba lagu kala tagay isla markaana ay ku kala dareeneen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe wada hadaladii curdunka ah ee dhawaan furmay kaasi oo la doonayay in looga gogol xaaro safar oo madaxweynaha ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland waxaa la tilmaamayaa hadda xaaladdu inay maraysa meel barakama leh ka gadaal markii xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale Jubbaland iyo Puntland ay isku biireen isla markaana madal mucaaradihii ay uga dhawaaqeen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya kulamo kale ayay uga ballameen gudaha dalka oo lagu kala qabanayo Kismaayo Garowe iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
dowladdu markan waxa ay danaynaysaa inay qaado tallaabooyin culus oo mucaaradka lagu afjigayo si loo yareeyo saameyntooda siyaasadda gudaha dalka. waxay doonaysaa dowladdu hadday suuragal tahay inay kala furfurto xubnaha mucaaradka sidii horeba ay u samaysay. haddii taasi ay suurageli weyso haddana waxa ay isku dayaysaa inay xal ka raadiso in mar kale ay qore caaradii ku maquuniso sida ay u weerartay Jubbaland. haddana waxay doonaysaa inay weeraro ka geysato gudaha deegaanada Puntland, garaan magaala xeebeedka Boosaaso, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada BSF-ta maamulkaasi. taliyaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaana galkaasi lagu wareejiyey, waxaana kala shaqaynaya taliyaha booliiska Soomaaliya ninka lagu magacaabo Asadiyaana. waxaana la tilmaamayaa in dhinacyadu si weyn arrintaasi ay uga wada shaqaynayaan, waxayna xal u aragtaa keliya villa Soomaaliya haddii mucaaradku mar kale la kala jibin waayo in xal ay ka raadiso guud ahaanba qori caaradii si loo maquuniyo mucaaradka iyo sidoo kale guud ahaanba xubnaha kale ee markaasi ku biiray ee maamul goboleedyada dalka. tani waxa ay dhaba cusub u jeexaysaa madaxda maamul goboleedyada kale ee markaasi ka shakisan xukuumadda talada joogta isla markaana ku garabka ah laakiinse aan la dhacsanayn nidaamka ay wax ku hogaaminayso. waxaa ka mid ah Cabdicasiis Laftagreen iyo Qorqor iyaguna maangal ay tahay in xeradu ay ka baxaan. waxaa sidoo kale maangal ay tahay Cali Guudlaawe isaguna inuu ka baxo, taasi oo suura gelin karta haddii garabyadaasi ay ku biiraan mucaaradka in xukuumadda talada joogta ay soo istaagayso meel cidlo ah, taasi oo guud ahaanba ku qasbaysa in mar kale mucaaradku ay u soo laabato isla markaana wada hadal ay ka gasho nooca doorasho ee markaasi dalka uu galayo iyo sidoo kale siyaasadda guud ee ay dalka ku hogaaminayso. waxayna noqonaysaa tallaabo mar kale ku qasbaysa in mucaaradku ay hoos tagto xukuumadda talada joogta sidii hore uga dhacday, isla markaana xilligii Rooble waa ra'iisul wasaaruhu arrintaasi ay dhacday, isla markaana madaxweynihii talada joogay ra'iisul wasaaruhu uu ka awood mutay ka gadaal markii muddo xileedku ka ilaaway. waxaa la tilmaamayaa hadda in guud ahaanba xiisadu ay tahay mid culus, isla markaana siyaabooyin kala duwan mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Nairobi ay si weyn uga shaqaynayaan guud ahaanba tallaabooyin culus. waxaa kaloo la tilmaamayaa inay qorsheynayaan in ay isugu yeeraan xildhibaanada mucaaradka iyo inta kale ee markaasi aanan ku safahayn xukuumadda talada joogta si markaasi guud ahaanba meesha loo dhaafiyo, isla markaana mooshin looga keeno gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay mucaaradku u arkaan caqabad weyn oo ay markaasi ka wajahayaan xukuumadda joogta talada. waxayna doonayaan in guud ahaanba dowladdu in ay meesha ka saaraan, gaar ahaan waxay doonayaan in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe oo ay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha talada jooga ay doonayaan inay meesha ka saaraan. waana fariin culus oo ay markaasi xildhibaanada mucaaradka iyo sidoo kale cidda kale ee markaasi mucaaradka hiba arrintaasi ay ka wada shaqaynayaan. magaalada Nairobi waxay martigelinaysaa xiisado siyaasadeed oo abaabulan oo ka dhanaa dowladda talada joogta, taasi oo si weyn maalmihii ugu dambeeyeyba ay uga wada shaqaynayeen mucaaradka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ee Jubbaland iyo Puntland ee markaasi ku biiray badashan cusub ee dhowaan looga dhawaaqay magaalada Nairobi. waxaana la tilmaamayaa in mar kale ay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan saaxada siyaasadda Soomaaliya. qorshahan waxaa kaloo maalgelinaya dowladda wadankaasi Sultanka Imaaraadka Carabta oo duun lacageed oo Trabella ku bixinaya. qorshahan guud ahaanba lagu afjigayo xukuumadda talada joogta, isla markaana la doonayo in mucaaradkii uga cuslaa looga beero gudaha dalka. waxay doonaysaa Imaaraadku isla markaana ay doonayaan in guud ahaanba magaalada Muqdisho ay ka abaabulaan dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo looga soo horjeeda xukuumadda talada joogta. tanina waxa ay sii kala fogeynaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda Abu Dhabi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhaqaaqaysa tallaabooyin aanan ka tarjumaynin guud ahaanba qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dowladda Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa isla markaana ay sheegayaan qaar ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda in sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay danaynayso in ciidamo ay ka dejiso magaalooyinka gobolka Gedo qaarkood iyo sidoo kale magaalada Boosaaso. waxayna doonaysaa in halkaasi ay ka abaabusho qorshayaal dagaal oo markaasi laba geesood ah oo lagu furayo maamulada Puntland iyo Jubbaland, maadaama guud ahaanba dhammaantood ay ballanka uga baxeen, isla markaana sidii wax uu doonayay madaxweynaha talada jooga guud ahaanba ay waxba noqon waayeen. hadda waxa uu doonayaa inuu mucaaradka maquuniyo waa madaxda maamul goboleedyada mucaaradka iyagoo garab ka helaya guud ahaanba mucaaradkii ugu cuslaa oo iyaguna madasha
howsha samata bixinta muddooyinkii ugu dambeeyey ku marayay magaalada haddana magaca kale oo cusub dhowaan lasoo shirtagaya ka gadaala Puntland iyo Jubbaland oo ay ku soo biireen. waxaa la tilmaamaya xaaladdu hadda in wajiyo kala duwan ay leedahay isla markaana siyaasadda Soomaaliya ay wajahaysa meeshii ugu cuslayd oo abid ay tagto muddooyinkii ugu dambeeyay. waxaase la tilmaamaya in dhinacyo badan iyo garabyo siyaasadeed iyo faragelin shisheeyo oo tirabeelay ay hadda soo gashay, waxayna dowladdu doonaysaa guud ahaanba inay saruuriso isla markaana xaaladan kala guurka waxay doonaysaa in si nabdoon ay dalka uga samad bixiso. walow mucaaradku ay doonayaan in dibadbaxyo ay ka geystaan gudaha caasimadda Muqdisho, haddana dowladdu waxa ay samaynaysaa in guud ahaanba ciidamo la duldhigo xubnaha mucaaradka si loo yareeyo dhaqdhaqaaqyada ay ka geysanayaan gudaha caasimadda Muqdisho, walow aan la ogeyn halka ay saldhigan doonaan. gudahaan intaas ayaan ku soo amiraya daawadayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.